بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرنتي وعنا وناكسن وبرنامج كني فقدات عيارها أو ألا بكداوتان تي فيجا عالمية يونيفرسال. وحنا كوسوغنا هاي استوديو فقدات أو كيلا بريجا مقالة لندن. سدا كوركتين فوريتانك برنامجك وحنا لنا برنامج آد حساب بدن وحمرتين نوجه مستر عبد القادر أحمد جامع الله يغنوا بدرديد قدوميها ناديجا وين إلمن اف سي وكردسان عاصمة مقالة مقدشو ودنك صوماليا. عبد القادر كسودو يونيفرسيتي في كسودو يعني عبد الناصر كوحدان وين إلمن اف سي حلقة لديسي iyo sida ay ku bilaabatay iyo dadka ka dambeeyay dhisidiisa bal wax nooga sheeg wallahi عبد الناصر kooxdan Elman waxa la dhihi karaa yani bilowgeeda magaca Elman FC wuxuu bilowday hadii Ilaahay ku roon yahay 1996 ayuu bilowday laakiin badanaa sida aad taariikhda ku aragtaan naadiga Elman wuxuu bilowday ayaa ku qoran 1993 sababta ay saas ku noqotana waxa waaye 93 Allah u naxariistay halyaagii weynaa ee Soomaaliyeed Maxamuud علي أحمد إلمان ayaa wuxuu aasaasay naadi sports oo caan ahay oo nabadda iyo isdhexgalka iyo maaragtay oo aad iyo aad oo ugu sameeyay magaalada Muqdisho taariikhdaas hore oo marka naadigaas oo aasaasay oo isdhexgalkii iyo maaragtay jabintii green تربية ودحية مقالة مقدسة دينا سبورتيغا يعني سبورتيغاس أو وقتيغاس بالله أيها وحو بالله ودي سقاشن يسد حدي ساس أكو بالله مركو بهوريسي ساس أيوكو بالله ودي لكن مقعاس حد جراء وإلمن فوتبول كلاب ما أوصان أحين حلقاس ما أوصان أحين أقرتي بل وحي قشك تاريخ نوليتك محمود علي أحمد إلمن ورنتي شخصي أد لغاية قناة مقالة مقدشو إسلا مركانا ساكو شاكتي مقع إلمن وحن فيليا إنو كي ماذي محمود مرحونك مقع إلمن الله نحرستي وحكي من محمود علي أحمد إلمن ومد صوماليين بدن كدوي وذي يقينين الله نحرستي إلمن حلقي نبضة nin caan ah oo ahay oo dhalinyaro ah oo fikrado badan oo rumaantii aad iyo aad u xiiso badan wadanka ku soo kordhiyay laakiin taariikhdiisa ugu weyn oo Elman dadku ay aad iyo aad ay ugu
ugu xasuustaan waxay ahayd xilligii colaadda yacni marka uu kasoo dhex baxay oo dhalinyaradii uu istaagay oo waxqabadkii maaragtay uu bilaabay ahay maaragtay qoriga dhig ee qalinka qaado xilligaas ayaa yacni taariikhdiisa aad iyo aad ay ugu xasuustaan shacabka Soomaaliyeed. kooxda Elman FC xilliga la dhisay xilliga ay bilowday waxay runtii waqtigii ugu xumeed ee Soomaaliya dagaalka sokeeye ka socday marka ra'yiga kulli yimid ra'yi fiican ayuu ahaa laakiin sidee loo waday ilaan shaqadii waxa la rabaa kooxo kale lala ciyaaro meelo kale la tago training la sameeyo garoomadii habeen iyo maalin xilligaas oo ahayd waqtiga ugu xun Soomaaliya lagu jiray dagaalkii sokeeye sidee lagu waday xilligaas wallahi horta xilligii hore oo maaragtay kooxdu aysan wadan magaca Elman Football Club Allah u naxariisteena uu noolaa Elman yacni badanaa asaga ayaa wuxuu ku waday awoodiisa iyo dhaqaalihiisa iyo dadaalkiisa ayuu ku waday Allah u naxariistee Elman xilligaas wuxuu sameeyay ciyaaro badan oo caan ahaayo maaragtay magaalada Muqdisho rumaantii aad looga jeclaystay oo maaragtay ay kamid ahayd maaragtay ciyaarihii oo isdhexgalka labada dhinac ciyaarihii xidigaha something like that ciyaarihii wacyigelinta nabad waxaas camal la dhihi jiray ciyaaro aad iyo aad u waaweyn ayaan garoonka istaadi Muqdisho rumaantii intii fadhigii uu buuxsaba dhulka la farfariistay laakiin xilligaas asaga awoodiisa ay aad ku socotay Allah u naxariistay Elman waatii la dilay Maarso 1996 markii la dilay Elman kadib adiga 3 bilood miya 4 bilood kadib ayaa waxaa jirtay koox Allah u naxariistay oo asna wadi jiray nin la dhihi jiray Shaamow koox uu wadi jiray oo macallin oo ka ahay hadii Ilaahay ku rooyahay macallin waxa ka ahay Cismaan Xasan kooxdaas oo Shaamow oo wadi jiray ayaa maaragtay Shaamow oo yacni oo wadi waayay macallinkii oo markaas joogay Cismaan Xasan ahay ayaa fikradda in kooxdan dib yacni magacii Elman loo aasaasa ayuu asaga iyo dhalinyaro kale oo markaas xaafadda Buulxoobi deganeed ayaa waxay u la yimaadeen gudoomiyihii ugu horeeyay naadiga markii loo bixiyay Elman Football Club loo bixi doono oo nin dhalinyaro ah oo sport soo maaragtay Soomaaliya asaguna rumaantii aad magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya caan uga ah oo la yiraahdo Cabdirashiid Xaaji Nuur ayay fikradda u la yimaadeen ay dhahaan naadigan magaca naadigaasaan wadnaa dhalinyaradaasaan haynaa waxaana jecelnahay inaan u bixino magacaas Elman oo aan ku maamuusno ninkaas halyeeyga ah oo maaragtay Soomaaliyeed fikradii saasay ku timid asaguna wuu la qaatay wuuna ka aqbalay saasoona magacu mar labaad dib ugu aasaasmay okay 20 sano ayaa ka soo wareegtay xilligii fikirka u yimid oo xataa logoga ay wadato kooxda Elman oo ah Peace Through Soccer oo ah nabadda iyadoo la isticmaalayo ciyaaraha kubadda cagta marka 20kan sano ee jirtay oo sanadkan 2013 kadaan ku jirno runtii club sida lagu wado wax fudud ma ahan marka sponsor ahaan xilliyadaas ilaa iyo hadda ma jira dhanka dhaqaalaha gacan ay dawladda idinka siisay guddiga Olimbikada qaranka Soomaaliyeed idinka siiyeen xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta idinka siiyeen ama dad kale oo ma aragtay businessman ganacsato Soomaali ay gacan idinka siiyeen sponsorkii qaabka loo maamulo naadiga Elman wallahi Cabdinaasir naadiga Elman dhaqaalaha iyo maaragtay awoodda oo maaragtay ku shaqeeyo badanaa wax ku yimaado koox la yiraahdo contribution dhalinyaro iyo dad Soomaaliyeed oo isxilqaamay oo naadigan u istaagay oo had iyo goor u orda oo u dadaala oo fundraising u sameeya oo dadaal badan sameeya ayay ku timid ma ahana yacni ma aha in dawladdu ay wax siiso ma aha in xiriir wax siiyo naadiga Elman ma aha in Olympica wax siiso waxaan ba dhihi karaa mararka qaar waa dhinaca kale u shaqeeydaaba adaway raad marka la yiraahdo sababtoo ah naadiga Elman waxaa dhacdo inuu wax badan asagu oo maaragtay xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo wax badan ka caawiyay xagga dhaqaalaha safarro badan oo naadi oo galay qaranku oo intuu xiriirku yacni awood u waayay in naadigu uu istaagay yiri waa in ciyaarahaas laga qayb galaa annagaana dhaqaalihii keenayna saan ku keenaba
ay keeneen lagana qayb galay. waxaan rabaa tan iyo intii la aasaasay dabcan koobab aad u fara badan ay ku guuleysteen oo aan rabno in daawadayaasha inay la ogaadaan kooxda Elman. marka koobkii ay isdhihi karto wuxuu ahaa mid bedelay qaabka ay u ciyaaraan iyo dadka tifoosiyaashooda taageerayaashooda ay u dhaceen, maxaa ka xasuusataa? wallaahi horta naadiga Elman waata dib loo aasaasay 96 dabayaaqadii 96 ilaa 97 sida aan xasuusto waxaa la qabtay horyaalkii labaad ee la qabto xilligii dagaalada, horyaalkii 96 97 naadiga Elmanna markaas uu ka qayb galayo oo dambe dib loo aasaaso magaca Elman Football Club loo bixiyay wuxuu dhisan yahay dhowr bilood camal, markaas 2 bilood 3 bilood. horyaalkaasna naadiga Elman ayaa ku guuleystay horyaalkii 96 97 horyaalkii ugu horeeyay oo magaca Elman ay uga qayb galaan, horyaalkaasna ayaga ku guuleystay. rumaantiina waxaa la dhihi karaa inuu ahay albaabkii maaragtay horumarka horyaalkii u furay naadiga Elman ayuu ahay. waxaana horyaalkaas ka qayb galay ciyaartoy badan oo caan ahayd oo wadanka Soomaaliya xitaa berisamaadkii ciyaari jirtay ayaa ka qayb galay. marka xusuusi ugu wanaagsan waxay iyadoo magacii marka la sameeyay dhowr bilood ka bacdina ay koobka qaadeen. dibadda marar badan ayaa tagteen idinkoo xataa marka qaarkood ciyaaryahano aad u fara badan qaranka idinka qaatay. marka meelaha aad tagteen waxay noogu sheegtay ilaa xilligaas? wallaahi naadiga Elman horta haddii la yiraahdo sanadihii uu tagay dibadda waxaan u maleynayaa in ay aad u fara badan yihiin. xilligaas laga bilaabo 96 horyaalkii uu ku guuleystay wuxuu ku aaday ciyaarihii bariga bartamaha ee Zanzibar. waxaa ka dambeeyay oo maaragtay naadigu uu aaday intaasoo jeer. wuxuu aaday mar kale Zanzibar, wuxuu aaday Uganda, wuxuu aaday Kenya, wuxuu aaday Rwanda, wuxuu aaday Tanzania maybe 3 jeer. waxaa u dambeysay tii hadda oo naadigu uu ku tagay Suudaan ee dhinaca Darfur. marka xilliga ay ka qayb galaan ciyaarahaas oo kale Soomaaliya marka lagu ciyaarayo runtii waa iska fahmi kartaa dhaqaalaha saas xoog leh lumba. marka haddaan ku soo laabtay mar labaad tikidadii la jaro, dharkii sponsorkii ahaa, hotelkii la joogo, wax walba ma dhanka bariga bartamaha Afrika laga helaa mise weli sheekadu waxay joogtaa ganacsatada dadka tifoosayaasha ah ee u kala nool dalka iyo dibadda? wallaahi wax badan waxay joogtaa taageerayaasha naadiga Elman iyo akhyaarta bahda isboortiga in ay wax badan stiil ay caawiyaan naadiga. waxaa jirtay hadda xilligan hadda la joogo bariga bartamaha marka la aadayo waxaa laga dhiibayaa tikidhada ayaa laga dhiibayaa. ayadoo tikidhadii laga dhiibay haddana waxaa ku sii dheer waxyaabo badan. waxa weyn ayaa dadku badanaa u jeedaan kooxda haddii tikidka laga dhiibo hotelna la siiyo waxay isleeyihiin wax ka maqanba male. laakiin marka aad maamusho naadi saas u weyn oo la xareynayo oo u baahan maaragtay haddii Ilaahay ku roon yahay daawooyin ciyaartoy badan ay xanuunsanayso, u baahan maaragtay dhaqaalo lagu kala furfuro waxyaabaha yararka ah soo dhacdhacaya, u baahan taransiidyada naadigu maaragtay inuu rumaantii ciyaartoydiisa aysan dhibaato badan arkin oo la isku dayo in aad iyo aad maaragtay loo yareeyo dhibka ay marayaan markay taransiidka yihiin. la isku dayo waxyaabaha motivationka lagu siinayo ciyaartoyda incentive-ka ah ama ballanqaadyada ah marka ciyaaraha la dheelayo, sida marka galabta garoon la galayo maaragtay ciyaar adag naadiga uu leeyahay. qarash badan ayaa baxo. qarashkaasna rumaantii wuxuu ku tiirsan yahay ciyaarta isboortiga iyo maaragtay bahda rumaantii Elman oo aad iyo aad ugu dadaala naadigan inuu noqdo naadi had iyo goor shaqeeya. waxaan rabaa inaad ii sheegtid ciyaaryahanada u dheela Elman qarankana u dheela ilaa iyo xilligaas wixii aad ka xasuusid oo la dhihi karo raggaas runtii isbedel weyn ay ku sameeyeen iyadoo maanta laga kala tegi karin ciyaaryahan walba oo 93 96 ilaa iyo maanta oo ciyaara. raggee la dhihi karaa magacaas Elman maanta waxaa lagu link gareeyaa raggaas oo aan la ilaawi karin? wallaahi horta waa jiilba jiil horta marka la fiiriyo waxaana jirto laga bilaabo xilligii burburka ilaa hadda ciyaartoy Soomaaliya qaran u dheela oo caan ah oo aan naadiga Elman soo marin ma jiro. haddii maaragtay la fiiriyo ciyaartoyda ugu waaweyn ee Soomaaliya soo martay 20 yearskii ugu dambeeyay gebigood Elman waa soo mareen.
kan ugu yaro wuxuu kala qayb qaatay cayaaraha oo dibadda. waxaa dhacdo mararka qaar hal cayaartooy inuu koox kale joogo oo cayaartooy kooxdaas daacad u ah uu yahay oo badana uusan kasoo tegaynin, laakiin annaguna wada shaqaynta iyo xiriirka naga dhexeeya naadiga Elman iyo naadiyaasha kale aad u weyn yahay. ma ahin naadi maaragtay ku kooban Elman kaliya. waxaan marka jirto in cayaartooy saasoo kale koox kale xitaa u jooga in naadiga Elman waqtigaas aan ku soo darno si aan asagana u siino opportunity, yacni oo dibadda maaragtay oo ku tago oo ku tuso dadka maaragtay dibadda waxa uu sameyn karo. marka cayaartooyda run ahaantii ayagoo jiilba jiil ah waxaan isku dayaa maaragtay inaan at least maaragtay sidii u kala horreeyeen iyo qaab noocaas aan ugu kala dhigo. horta waxaa number 1 ugu horeeya oo u baahan in la xuso kabtankii ugu horeeyay ee naadiga Elman ee u qaaday horyaalkii ugu horeeyay naadiga Elman oo ka qayb galo waa kabtanka waa Senegal oo caan ahayo Soomaaliyana waagi berisamaadka sidii la yiraahdo صح ka ciyaari jiray maaragtay kooxda Batroolka u dheeli jiray. waa badan yihiin. waxaa kamid ah Cali Kuuri oo kale, waxaa kamid ah hadii Ilaahay ku roon yahay maaragtay raggii hore oo caanka ahay, waxaa kamid ah Akiile oo kale. Akiile صح. waxaa kamid ah yacni Cumar Dhooqeeyo kale. aad iyo aad u badan waa jiilkii badanaa yacni hore oo dhinacaas kasoo maaragtay Xasan Faarax goalkeeperkii asna caanka ah Elman, Nuno asna goalkeeper maaragtay caan ahayo Elman iyo waagi berisamaadka. jiilkaas waa jiilkii hore. jiil dhexa asaguna jiray oo maaragtay sagaashameeyadii u badnaay oo yacni ay kamid ahaayeen matalan Yaasimo iyo Cumar Elfis iyo maaragtay Dacayay iyo gruubkaasna gruubay ahaayeen oo maaragtay rumaantii anoon jeclayn maaragtay inaan hal u soo qabto yacni dad badan ka tagaya. qofkii loodan kulay waa qofka loodan hadda kulay tabara waa iga raali noqonaya. cayaartooy badan oo caan ah jirtay Cabdi Baaskid oo kale naadiga Elman waa soo maray. cayaaraha qaar cayaartooy badan oo nagala qayb qaadata waa jiraan oo kala badan. marka ma jecli inaan qaar ka tagtago. marka aad iyo aad u badan yihiin jiilkii hore. jiil kale asna yacni ku soo xigaya asna jiray oo yacni asna kabtankii naadiga Elman xilliga ugu dheeray oo Gaduudo oo kale asna qarankana xilliga ugu dheeray soo maray oo asna soo qabtay. Sweden ayaa waxaan ku qornaa ciyaarihii suuqi xilliga ay socdeen waa runtii shakhsi aad looga jecel yahay oo Elman aad iga sheekay. waa nin wuxuu ahay rumaantii aad iyo aad laf dhabar u ah naadiga Elman iyo qaranka. ma ahayn yacni cayaartooy kaliya wuxuu ahaa nin xitaa cayaartooyda iyo maamulka nin isku xiro ahay oo yacni tiir u ah maaragtay Elman ha ahaato ama qaranka ha ahaato aad iyo aad isugu xiray. waxaa kamid ah yacni asna Aweys Cali Winkey oo naadiga Elmanna dadkii u soo cayaaray oo caanka ahay kamid ah. aakhirkiina dadkii soo galay maaragtay dhinaca maamulka kamid ahay. waxaa kamid ah macalinka hadda jooga naadiga Elman oo maaragtay Yu Cali ciyaaryahanna ahaan jiray. rag badan Cabdi John ciyaaryahan kale oo asna maaragtay caan ahay oo badanaa Banaadir Telecom yacni lagu nasbi jira laakiin Elmanna ahay oo France maaragtay asna la yiraahdo waa asna waa jiray ciyaartooyda ugu rumaantii aad iyo aad ugu fiican. oo ciyaartooy kale oo naadiga kala qayb qaadatay ciyaaro bariga iyo bartamaha ayaguna waa jireen oo badan. wakiil oo kala kamid ahay gruubka yacni ayaguna xoogaa ku soo xigay ayaguna waa jireen oo badan waa jireen oo yacni ayaguna waxaa kamid ahay yacni Bazuuka oo kale, Mintum oo kale, ninka la yiraahdo waxaa kamid ahay hadii Ilaahay ku roon yahay والله ما هل مو سو جيجي طبعا marka studio la fadhiyo aad ay adagtay laakiin waxaan filayaa cid walba ku daawanaysa caawa maaragtay qof walba u soo ciyaaray 20 sano ee ugu dambeysay kooxdan weyn ee Elman in halka laga xusayo. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal ah waxa lagu yaqaanaa kooxdan Elman dhanka wacyigelinta bulshada sporti kaliya ma ahan sababtoo ah waxay isticmaalaan dadka dhalinyarada inay ku wacyigeliyaan ka hortagga cudurka HIV/AIDS-ka in ay sameeyaan nabadda iyo ciyaaraha ay sameeyaan. arrimahaas ra'yigooda sidoo ku bilowday maxaase ka qabateen arrimahaas? wallahi horta
arrimahaas yani waxyaabihii naadigu oo ka dhaxlay kamid ahayd maaragtay taariikhdii allah u naxariistay Elman waxyaabaha oo Elman sameyn jiray oo naadigu yani maadaama astaantii Elman yani oo xambaarsan yahay oo isku dayay inuu wax ka qabto ayay kamid ahayd barnaamijyo badan oo caan ah ayaa naadigu sameeyay oo Sports for Peace oo kala ahay tan kale oo aad sheegtay awareness ko kale yani xilligii rumaantii dagaaladu aad u socdeen ayadana cudurkan HIV-guna aad iyo aad wadanka maaragtay oo rumaantii ugu soo bilaabanay dhalinyaraduna yani aad iyo aad maaragtay ay ugu liiteen maaragtay in dhibkaas oo ku dhaco yani aad iyo aad yani ay ugu sahlaneed marka naadigu waxaa jirtay inuu sameeyay barnaamijyo noocaas oo wacyigelin ah oo HIV awareness ah badanaana ay qabanayeen ciyaartoyda Elman intii la tababaray ayaga maadaama ay yihiin dad la yaqaano oo caan ah oo magaalada haday dhex maraan ciyaartoy caan ah dhalinyarada role model waxa laga yaabaa waxaan xasuustaa mararka qaar ciyaartoy wada inuu naadiga kugu keenayo ciyaalka darbijiifka ah dhowr xabo asagoo wato ku keenaya rumaantii aad iyo aad ayayna u liitaan oo maaragtay duruuf ahaan dad aad iyo aad u liito waxaad arkaysaa ayagoo isku dhex jira marka ciyaartoydii iyo maaragtay ciyaalkii laga soo waday wadada oo wax qajalaada iyo wax maaragtay ka faanfaanida aysan jirin waxaan xasuustaa xitaa marar qaar in ciyaartoydii oo canugi intay fanaanadii ka bedelaan oo soo qabeeyaan naadiga Elman xarun weyn oo lahaay oo qaybo maaragtay jiif qaybo maaragtay xafiis qaybo maaragtay oo lagu baashaalo oo geemam iyo waxyaabo badan yaalin ah ciyaartoygi within half an hour waxa arkaysaa canugii oo bedelan oo loo soo qabeeyay oo loo labisay oo qurxoon oo ciyaaray meeshii ku ciyaaray meeshii geemamkii naadiga waxa yili geemam badan oo lagu dheelo caruurta ay aad u jeclaayeen marka saas ciyaartoydu ku soo xareyn jireen dhalinyarada yararka ah oo maaragtay rumaantii aad ugu tabaalaysan wadooyinka kadibna wacyigelin loo sameyn jiray ciyaartoyda markay saas u soo wacyigelayaan oo ay keenaan haddana waxaan isku dayi jirnay in aan dhalinyaradaas xitaa aan iskuul iyo aan la raadino iskuulo badan oo waxaa jira magaalada Muqdisho ka dhisan oo rumaantii haddaan u geyno dhalinyaro naga aqbali jiray iskuulo badan oo iskuul kasta oo noo overgareyn jiray waxaan sanadkan idin siinaa 5 dhalinyaro ah oo sponsor waxaan idin siinaa 10 marka waxaan geyn jirnay in maaragtay meeshaas ay dhalinyaradii in lagu waxbarashadii lagu maaragtay qaar xitaa waxaan isku dayi jirnay inaan family ku raadino oo dadkoodii aan ku raadino oo dadkii markaan soo helno xitaa aan annaga iskool geynayna annaga kafaalo qaadayna maaragtay dhinacii iskuulka xitaa maaragtay aan isku dayi jirnay mararka qaar xagga family-ga dhaqaalaha inaan xitaa isku dayno inaan annagu xitaa aan wax ka kabno tan waxay kamid ahay marka qaybta oo community service ay sameeyaan ay kamid ahayd okay waxa kaloo idinku yaqaanaa in tagi jirteen gobolada Soomaaliya tusaale ahaan mar safar ku tagteen shabeellooyinka gobolada Baybakol iyo Gedo marka arrimahaas ra'yigaas sidoo ku yimid in gobolada tagtaan ra'yigaas suguna wuxuu ahay ra'yigii Sports for Peace oo ahay isdhexgalka ee nabadda sportiga ayuu ahay oo aan ugu talagalnay in maaragtay sportigu oo noqdo furaha maaragtay nabadda wax badan markaan Muqdisho wacyigelin badan ka qabanay oo aan dadaal badan ka sameynay waxa haddana timid in naadigu oo ku ekaanin Muqdisho kaliya ee goboladana uu aado safaradii ugu horeeyay marka waxaan ku aadnay gobolada maaragtay Baay iyo Bakool iyo ku aadnay yani waxa kale oo jirtay isbaarooyin badan xitaa oo wadooyinka tiilay oo meel kasto aad soo marto waxa laga yaabaa Baydhabo ilaa Muqdisho inaad ugu yaraan 30 isbaara aad sii marto waxyaabaha rumaantii aad ugu cajiibsan oo yani safaradaas aan ku sameey jirnay waxa kamid ahayd in ay dhacdo in naadiga Elman intuu isbaaro soo istaago iyadoo laga sugayo in maaragtay isbaaradii lacag la dhiibo yani markaan degno aan dhahno naadigii Elman oo saas ayaan wadnaa markaan dhahno waxa laga yaabaa mararka qaar inay xitaa contribution isbaarada ay dhiibaan dhahan war saas bahadaatiin maaragtay yani hawshaas annaguna qaybaan ka qaadanayna yani waxay kamid ahayd xitaa yani wacyi wuxuu ahaa xitaa isbaarooyinka qaar aan ku jabinayn صح rumaantii yani aan rabnay inaan maaragtay isbaarooyinkaasna
aan yani run ahaantii wax uga qabano gobolada saasaan ku aadi jirnay waxaan yani la ciyaari jirnay xitaa tuulooyinka naadi weyn ha ahaado laakiin marnaba ma aanan yaraysan jirin xitaa tuulooyinka waxaa dhacdo mararka qaar annagoo laamiga marayno in laamiga ay noo taagan tahay tuulo loo leexanayo haddii ugu yaraato 20 mayl loo leexanayo oo ay tiraahdo waxaa meeshaan usoo istaagnay waxaa maqalnay safarkiina inuu xagga u socdo meeshaana idinkaan idin soo istaagnay inaan nala ciyaartaan xaggaad joogtiin marka tuulo waxay noo wadaan gudaha loo galayo oo laamiga ka baxsan in loo leexdo loo tago lala soo ciyaaro waxaan kaloo sameey jirnay xitaa safaradaas waxaan qalabay jirnay kooxaha aan la ciyaarno dhan oo naadigu wuxuu yani siin jiray qalab aad u fara badan oo maaliyado iyo kubado iyo waxyaabo noocaas ah marka meel kasto aan tagno oo aan ka dheelno waxaan uga tagi jirnay astaanta sportiga maaragtay inay sii shaqeydo dhanka nabad okay inta badan waxa laga hadlaa taban burbura wadankii ku dhacay tiimamkii kooxihii naadiyadii Soomaaliya aad kala yaqaanay Horseed Jeeyo Munishibiyo madbacada batroolka ayaa laga hadlaa laakiin inta badan dadku waxay eegaan statistics kala fiiriya hadii la soo agdhigo Elman koobka ay qaaday ciyaaraha dibadda u qayb gashay raggan kama yaraysato sax marka ma ii sheegi kartaa hadii la soo barbar dhigo Horseed ama Jeeyo kale Elman hadii la soo barbar dhigo koobka qaadeen iyo kuwaas waxay qaadeen iyo taariikhda sida ay والله horta anagu yani statistic dhinacaas ma sameeyno oo marnaba ma isku dayno inaan isku yani aan challenge sameeyno oo ma aan isku dayin laakiin kulleeytaba qof kastaba sportiga yani taariikhda oo markaas ka joogo ayuu maaragtay oo wax ku ool oo ka noqdo ay tahay xilligii la burburay oo wadanka oo burburana maaragtay dhibaato badan ayadoo lagu jiro ayaa sportigu uu shaqeynayay naadiga Elmanna dhibaatadaas uu ku shaqeynayay haddii taasu ay jirtana yani naadiga Elman naadi kaligiis oo koobka intuu kaligiis ciyaaro hadba iska qaatama oo san ahayn kooxo badan oo waaweyn ayaa maaragtay nala dheeli jiray naadiga Elman kaligiis ma reyn jirin markaste waa nalaga reyn jiray sida taariikhdu rumaantii ay xusayso ilaa horyaalo waxa la qabtay xilligii burburka wadanku yani oo burburay ilaa 10 horyaal amal ayaa la qabtay inta officialka ah oo yani kooxaha oo dhan ay isku raacsan yihiin 10 kaas horyaal oo la qabtay naadiga Elman wuxuu qaaday 6 kamida ayuu qaaday 2 kamidana sidaan ogahay waxa qaaday Banaadir Telecom hal mar dekedaha qaaday hal marka waa markii ugu horeysay oo waxa qaatay koox la jira Hajs rumaantii kooxa adaga waaweyn oo aan rumaantii ahayn kooxa yar yarna way joogeen wadanka xiliyadaas oo dhan ilaa haddana way joogaan oo maaragtay sida aad aragtaan markastaba horyaalku marka uu socdo yani iska orod naadiga Elman wax kuma qaato badanaana anagu horyaalada aan qaadno waxaan ku qaadnaa badanaa dadaal badan iyo farsamo badan iyo karti badan iyo maaragtay rumaantii ayaan ku qaadnaa maahana wax iska qaada ama aan qaad labada xilli marka la fiiriyana xilliba xilligiisii uu ahay sanadadii hore oo berisamaadkii waa jireen kooxo waaweyn waa jireen kooxo dhexdhexaad waa la isku dhex jiray sidii ay u adkeed in horyaal lagu guuleysto xilligaas ay ilaa haddana u adagto waaba kasii adagtahay hadda okay waxaan rabaa waxa ka jira naadiyo iyo ururo sport aad u waaweyn ayaa waxa ka jiraan qurbaha kuwada ugu waaweyn waxa kamid ah Woodward Park Sports Club oo ka dhisan magaalada Manchester ururka weyn ee suuqa ka dhisan wadanka Sweden iyo ururo kale ayaa jira magaalada London ururo ka dhisan marka kulli shaqooyin aad far badan ay ka dhaxeeya waxa ugu maqaal ah in mar dhow insha Allah aad kulmi doontaan Woodward Park Sports Club oo ku yaala magaalada Manchester oo dhalinyaro aad oo maaragtay taf u ah oo shaqo badan qabta ay oo la shaqeeya kooxda Manchester City marka qaabka ay isla shaqeeysan iyo sidaas u aragtaan waxay nooga sheeg ururadaas wallahi horta naadiga Elman badana maaragtay waa naadi jecel had iyo goor qof allaalay qofkii sports ah in oo maaragtay oo rumaantii la kulmo oo la sheekaysto oo fikrada la isdhaafsado annagu wadankan rumaantii gudihiisan ka shaqeynaa kooxahan kalena waxay ka shaqeeyaan iyo ururadan kale dibadda dadkiina waa isla dadkii maaragtay duruuf unba kala wada maahanade waa la isu baahan yahay lamana kala maarmo sidaad sheegtana waa is aragnay yani ururkaas iyo ragga maaragtay rumaantii mas'uulka ka ah
rag aad iyo aad u daneynaya in maaragtay ay dadkii Soomaaliyeed isboortiga gudaha ay qayb weyn ka qaataan fikrado badan yacni diyaar u ah inay nagu soo kordhiyaan aad iyo aad aan u wada sheekaysanay waxaan rajaynaynaa in aan u noqono furihii ay wadanka gudihiisa intay ku soo galaan ay wax qabadka wadanka oo u baahan yahay dadkii wax u qabalahay maadaama ay kamid yihiin annaguna aan nahay yacni rumaantii dad wadankii ka shaqeeya oo maanta astaantii ugu muhiimsaneed oo isboortiga kooxda lagu tabaayay Elman ay tahay waxaan yacni aan rajaynaynaa inaan furo u noqono oon soo dhaweyno inoo yimaadaan oon tusno waxa laaleeyo waxa wadanka jiray isboortiska sidoo uu yahay iyo sida wax la isula qaban karo ayaguna maaragtay rumaantii ay ku dhiiranaadaan inay noo yimaadaan maadaama annagu wadankii aan joogno oo badanaa xagga u badannahay sida maaragtay aad wada ogtihiin waxaan rajaynaynaa in wax qabad iyo isdhexgal iyo wada shaqayn weyn ay ka soo baxdo insha Allah insha Allah saan la socono waqtigii barisamaadkii hadda waxay kala duwan hadda technology ayaa soo baxday xilligii aan barnaamijka aan sameeynay sida shaashada ku aragno shabakad ayay leedahay kooxda Elman waxaan uga jeednaa screen-kan uga jeednaa hadda shabakad ayay leedahay waxay leedahay Twitter ayay leedahay Facebook ayay leedahay waxaan filayaa xilligii telefoonada la soo diri jiray waa laga soo gudbay iminka wixii dhaca maanta videoga ciyaaraha ka qayb galeen waxa laga daawadaa barta YouTube-ka Facebook-ka Twitter-ka meel bay laga daawadaa marka taas gacan weyn midin siisay teknolojiyada cusub aad iyo aad waxay na siisay rumaantii aad iyo aad ay nooga caawisa xagga maaragtay in aan maaragtay dadku ay aad iyo aad accessible ugu ahaadaan inay arkaan wax qabadkeena waxay kaloo aad iyo aad rumaantii xitaa noo sii caawisay waxaa jiro dhalinyaro badan oo naadiga Elman soo martay oo ciyaartooy oo dibadaha ku nool waxay leeyihiin group ahaan meel isugu yimaadaan oo Facebook ah oo qayb maaragtay iyo u gaaro Elman football club yani la yiraahdo way soo wada galaan waxa soo gala taageerayaashii naadiga Elman oo maaragtay adduunka dhan wada jooga ilaa dadku badanaa wadanka dad badanaa ka soo baxay iyagoo naadiga Elman taageerayaal u ah meeshaas isugu wada yimaadaan way ku wada sheekaystaan fikradaha iyo waxyaabaha mararka qaar waxaad arkaysaa naadigii oo galabta ciyaara inay isla markiiba ay ka jawaabayaan goolashu say u dhashaan iyo sida maaragtay loo kala adkaanayo iyo waxyaabo noocaas waxay xitaa aad noogu saamaxday naadigu yacni mararka qaar inay intay ayagu gudaha ku sheekaystaan ay dhahaan oo naadigiisaana jirto maxaan u qaban karnaa mararka qaar wax badanba aan dhaho inay contribution ayagu ay ku sheekadaas ku keeneen waxaas aan sameyno maanta ciyaaruu leeyahay naadiga maaragtay aan motivation ahaan dhalinyarada intaas maaragtay aan u siino marka gacan aad weyn ayuu siiyay u sameeyay okay waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka ayaa soo dhow marka dad aad u far badan ayaa daawanaya caawa marka maxaa dhanka gacanka siinta sidoo naadigan maaragtay qaranka xataa full soo u matali lahaa maxaa tifoosayaasha asxaabta sport dad aad u far badan ayaa daawada faaqadaad ciyaaraha caawa Elman FC maxaa looga baahan yahay oo aad doonaysa in gacan idinka siiyo haddaad tihiin maamulka sare ee Elman FC wallahi horta annagu badanaa naadiga Elman kaliya ahaan wax uma raadino waxaan wax u raadinaa sportska Soomaaliyeed oo dhan waxaan jecelnahay dhalinyarada sportska ah ama shakhsi kasta oo sportska inuu rumaantii aad iyo aad uga qayb qaato horumarka sportska ee wadanka aad iyo aad taas ayaan u danaynaynaa naadiga Elman ahaan rumaantii waa naadi maaragtay asagu already dadaal badan ku jira taageerayaal badanna waa u baahan yahay wax qabad badanna waa u baahan yahay nin kasta oo maaragtay yacni raba naadiga Elman in uu wax u qabtana waa u furannahay annaga ma aha xitaa wax qabasho keliya waxaan u furannahay qof allaale iyo qofkii dareemaya inuu yacni in yar oo xitaa maaragtay wax qabada ay ku jirto oo maamul ah oo raba inuu xitaa naadigan intuu ka qayb galo oo mas'uuliyadiisa iyo wax qabadkiisa iyo horumarkiisa isdhihi kara meeshuu joogo wax ka bedelan ayaad geyn kartaa xitaa annagu diyaara u nahay ma aha naadi dadka ka xirxiran waa naadi dhalinyaro waa naadi sports waa naadi Soomaaliyeed waa naadi aan astaan kale ma leh oo aan ahayn astaanta maaragtay isdhexgalka iyo wada shaqaynta iyo nabadda iyo Soomaalinimada iyo walaaltinimada qof allaaliyo qofkii diyaar u ah inuu naadigan dhinac kasta uga qayb qaatana waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad aan soo dhaweynaynaa dhinacay doonta ha ahaato
waxaan kaloo soo dhaweynaynaa qof allaale iyo qofkii raba inuu isboortiga Soomaaliya ka qayb qaato elman kaliya ma ahane waxaan rabnaa kooxaha kale xitaa in la caawiyo oo kor loo soo qaado si isboortiga Soomaaliya kor ugu soo kaco dhan oo kor ugu kaco annaga shakhsi ahaan waa dadaal badan aan wadnaa waxaa laga yaabaa hadda kooxaha horyaalka Soomaaliya ka dheel ilaa 25 kooxood 8 kooxood ama 9 kooxood ka mid ah naadiga elman ku sii tiirsanta xaq qalab hadii la yiraahdo mararka qaar xitaa xaq oo maaragtay xitaa dhaqaalaha hadii la yiraahdo because annaga lafteena waxaan rabnaa in dadkii ay noqdaan dad xitaa wada shaqeynayo isla isgarab taagan marka wixii elman loo qabta elman kuma ekay kalaabiyada kale gaarayaan kalaabiyada kale xitaa waa gaarayaan waxa laale wixii naadiga elman loo qabto naadiga elman naadi kaligiis wax cuna ma taas maaragtay waxaan kala rabnaa xitaa ninkii koox kale yacni daneynaya xitaa kooxda kale in oo wax u qabtaan rabnaa annaga si koox adag oo maaragtay dhinac kasta ka dhisan ay u dhisanto naadiga elmanna marka kooxii kale ay kor u soo kacaan asna kor u soconay insha Allah هذا ما سنتهي هذا ينكون مدعلنا يا داوديال ساكو أركتان شاشة وحكوية لا الشبكة دا أما ويب سايت كا أي ليهين ناديجن وين كرديسان عاصمة ودن كصوماليا إلمن اف سي يادكو أركتان يو برتو ذا فيسبوك اي تويتر كا تيفوسياشا dadweynaha Soomaaliyeed ee isboortiga jecel waxay kala xiriiri karaan sida ugu fudud iyo YouTube ay leeyihiin oo laga daawan karo video ugu dambeeya ciyaaraha ay ka qayb galaan sida bariga iyo bartamaha Afrika ee ciyaaraha ka dhaca gudaha wadanka Soomaaliya waxaan kale u mahadcelinaynaa gudoomiyaha Cabdiqaadir wuxuu noo keenay saako aragtaan Elman Sport Club Peace Through Soccer ayuu noo keenay oo ah asaanta lagu yaqaano iyo wuxuu noo keenay oo kale halkan فناندي إلمن اف سي أيها الكنوع كاني مركا آد يعني ما علينا إن شاء الله وحي معلومات كسو كرده مر والبا وحن سكودينا إن أبديت أنك قدكنو تي فيجا عالمية يونيفرسال مركا عبد القادر واحد جرتا دور سنة كهور إن سميناي حس عن مرحوم كمحمود أحمد علي أو سميناي إلمن أو سميناي مركا waxaan idinka ga tagaynaa intaan barnaamijka soo xirin barnaamijka waxaan soo qoray Cabdiqaadir Maxamed Faarax Misbarq madaxa sportiga University TV cameraman editorka waa Cabdirashiid Rashka waxa soo saaraha ah Jibriil Maxamed Jibriil iyo Cabdiqani Maxamuud Ba aniga iyo Cabdiqaadir intaan idinka tagin bal nala daawada clipkan yar ee noo sameeyeen Rashka iyo Cabdiqani oo ku saabsan xus loo sameeyay dhowr sano ka hor halyeyga Soomaaliyeed marxuumka Maxamuud Ali Ahmed oo loo yaqaano Elman gesiga dhulkiisa busha u horseeda gerida dishay gedka habo uga praaratada kumaysigu ku dhunta nafsada humada gedkooda bo gesiga dhulkiisa busha u horseeda gerida dishay gedka habo uga praaratada kumaysigu ku dhunta